السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawada ku soo dhawaada muuqaalkan cusub. daawada waxaan halka idinku soo gudbinayaa 10 calaamadood oo lagu garto kansarka oo ay adag tahay in si fudud lagu ogaado. dad badan marka ay maqlaan ereyga kansarka waxay la xiriiriyaan cudur halis ah oo cawaaqib xun leh. laakiin laga soo bilaabo 70meeyadii heerka badbaadada ee xanuunkan ayaa kordhay sababo la xiriira ogaanshaha cudurka ee xilli hore. sidaa darteed waxaa la daaweyn karaa ka hor inta uusan jirka kale ku faafin. dhibaatadu waxay tahay inta badan sababtoo ah ma rabno inaan dhibno dhakhtarka ama ma siino muhiimad ku filan. waxaan iska indhatiraa calaamadaha qaar oo muhiim u ah ogaanshaha hore ee kansarka. dhibaatada ugu weyn waxay ka timaada marka uu qofka iska indhatiro ama uu ka wehensado inuu booqdo dhakhtarka. waxaan halkaa idinku soo gudbinayaa 10 calaamadood uu leeyahay xanuunka kansarka balse aan lagu baraarugsanayn ayna tahay inaad iska indhatirin sida laga soo xigtay ururka kansarka ee Mareykanka. 1. miisaanka oo luma sabab la'aan. inta badan dadka qaba kansarka marunbaa miisaankooda hoos u dhacaa. markaad miisaan lumiso sabab la'aan waxaa loo yaqaanaa miisaan lumis aan la sharxin. miisaanka oo iska dhima 5 kilogaram ama ka badan ee aan la sharxin waxay noqon kartaa calaamadaha ugu horeeya ee kansarka. calaamadan ayaa waxaa badanaa lagu arkaa dadka uu haleelo kansarka. calaamad labaad ayaa waxay tahay qandho. qandhada waxay aad ugu badan tahay bukaanada qaba kansarka kadib marka uu kansarku ku faafo qaybaha kale ee jirka. ku dhowaad qof kasta oo qaba kansarka ayaa marun qandho yeelan doona, gaar ahaan haddii kansarku ama daaweyntiisu ay saamayso habdhiska difaaca. qandhada waxay noqon kartaa calaamadda hore ee kansarka, gaar ahaan kansarku ku dhaca dhiigga ama unugyada. calaamad saddexaad, daal. daalka ayaa lagu tilmaamaa mid aan dhammaan xitaa marka uu qofka nasto. waxa uu calaamad u noqon karaa xanuunka kansarka kadib marka uu faafo. balse kansarka kale sida kansarka ku dhaca dhiigga, daalka ayaa la dareemi karaa xilli hore. qaar ka mid ah kansarada mindhicirka ama caloosha waxay keeni karaan dhiigbax aan muuqan. tani waa sabab kale oo uu kansarku u keeni karo daal. calaamadda afaraad ayaa waxay tahay maqaarka oo isbeddela. marka laga soo tago kansarka maqaarka, kansarada kale ayaa waxay sidoo kale keeni karaan isbeddel dhanka maqaarka oo la arki karo. calaamadahan iyo astaamahan waxaa ka mid ah madoobaa ma mugdi soo galo maqaarka, midabka maqaarka iyo indhaha oo jaalle noqda, maqaarka oo casaada iyo cuncun, koritaanka timaha oo sare u kaca. calaamad shanaad ayaa waxay tahay isbeddelka shaqada mindhicirka ama shaqada kaadiheysta. calool istaag joogto ah, shuban ama isbeddelka qaabka saxarada waxay calaamad u noqon kartaa kansarka mindhicirka. dhanka kale, xanuunka xilliyada kaadida, dhiig la socdo kaadida ama isbeddelka shaqada kaadiheysta ayaa laga yaabaa inay la xiriirto kaadiheysta ama kansarka qanjirka. calaamadda lixaad, dhaawaca aan bogsanin. dad badan ayaa og in burooyinka weynaada, dhaawaca ama dhiigbaxa ay noqon karaan calaamada kansarka maqaarka, laakiin sidoo kale waa inaan ka taxadarnaa nabarada aan bogsoonin wax ka badan 4 toddobaad. boogaha afka oo aan bogsan waxaa laga yaabaa inuu sabab u yahay kansarka afka. isbeddel kastoo afkaaga ku dhaca oo soconaya waqti dheer waa in isla markiiba uu hubiyo dhakhtarka ama dhakhtarka ilkaha. nabarada ka soo baxa xubinta taranka waxay noqon karaan calaamadaha caabuqa ama kansarka maqaarka ee hore. waa in uu hubiyo xirfadle caafimaad. calaamadda toddobaad, dhiig lagu arko saxarada, kaadida ama ibta hore ee naaska. dhanka kale, haddii uu dhiig la socdo saxarada kaasoo noqon kara midab aad u madow, waxay calaamad u noqon kartaa kansarka mindhicirka. kansarka ilmo-galeenka wuxuu noqon karaa dhiigbax aan caadi ahayn. sidoo kale, dhiigga kaadida la socda wuxuu noqon karaa calaamadda kansarka kaadiheysta ama kansarka kelyaha. dhiigbaxa ibta naaska ayaa noqon kartaa calaamadda kansarka naasaha. calaamad sideedaad, qalafsanaan ama culays meel kasta oo jirka ah. kansarada intooda badan waxaa laga dareemi karaa maqaarka. kansaradani waxay inta badan ku dhacaan naaska, qanjirada kaadida iyo unugyada jilicsan ee jirka. miisaanka ama qalafsanaanta waxay noqon kartaa calaamad hore ee kansarka. calaamadda sagaalaad, liqitaanka oo kugu adkaada. hoos u dhaca dheefshiidka ee joogtada ah ama liqida kugu adkaata waxay noqon kartaa calaamada ka mid ah kansarka cunaha. qufac joogto ama codka ka xirma. qufac joogto ah wuxuu calaamad u noqon karaa kansarka sambabada. waxaa lagugula talinayaa inaad booqato dhakhtar
haddii aad qunfacayso in ka badan 3 toddobaad aad iyo mahadsanid daawadayaal